السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa taqaanaa in biyaha caadiga ah faa'iidooyin badan oo caafimaad jirkeena u leeyihiin. waxa ugu horeeya faa'iidaha waa in jirka ay ka ilaaliyaan fuuqbaxa, sidoo kalena dheefshiidka iyo electrolyteska inay balance gareeyaan, keliyaha ay u fiican sidoo kale wasaqda iyo dhagxaanta ka ilaaliyaan. laakiin waxaa jira dhowr waqti oo afar qodob aan kusoo koobi doono oo ay muhiim tahay inaad biyo cabka tirada badan iska ilaalido oo aan talooyinkaas sii doono insha Allah tacaala. qodobka koowaad waa inta aadan cunada cunin 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo ee ka horeeyo cunada, yani inaad quraactaa rabtaa ama qadida ma cashaydo, waxaa loo leeyahay ka hor wax biyaha tiro badan ha qaadan. oo maxaa dhacaya? sida caadiga cunada markay caloosha gasho waxay la kulantaa aashtada, kadibna halkaas lagu burburiyaa iyo dheecaano badan, kadibna halkaas dheefshiid fiican ka dhaca, kadibna wixii nafaqo halkaas mindhicir laga nuugaa. laakiin ka hor marka biyo inta cabto aad aashtada dhanbaraxdo, kadibna halkaasi aad mataqaan cunadii ay suurto gasho inaan wax badan laga shiidin, caloosha hadhow ay ku bilowdo calool-majiir tiro badan iyo iska dabariga aad bilowdo, waa xaalad inteeda leeg. sidoo kale waxaa dhici karta in wax nafaqa aan laga faa'iideysan oo nafaqo badan jirka uusan dib u nuugin, hadhowna aan calooshii aare badan iyo gaas badan iyo yacni iyo caloosha xaggeeda ka timaado. marka waxaa lagula talinayaa qofka in 30 daqiiqo ka hor cunada uusan wax biyo isticmaalin, yacni biyo kaba yes waa la ogolyahay, laakiin biyo saa'id ah la diidaa. sidoo kale cunada kadibna 30 daqiiqo inuusan biyo xawli ah isticmaalo tiro badan. qodobka labaad waa marka qofka uu jimicsi saa'id ah sameeyo. jimicsiga kale ah midna waa yar, mid yar iska yar xuleyna, midna waa mid saa'id ah dadku ma taqaan jimicsi saa'id ay sameeyaan. marka jimicsiga saa'id la sameeyo kale waxaa muhiim ah in qofku uusan biyo badan cabin, sababtoo biyaha tirada badan waxay keenayaan in caloosha calool-majiir tiro badan ila labo, xataa qofku in xaaladiisu ay khatar gasho ay keeni karaan. sababtoo ah dhiig badan ayaa murqaha jirka la gaarsiinayaa, maadaama murqaha jirka dhiig badan la gaarsiinayo, biyaha tirada badan ee lacag waxay keenayaan electrolyte imbalance ay keeni karaan. marka haddii ma taqaan electrolyte imbalance ay yimaadaan qofkii jarayn iyo xor arki karaa. marka waxaa fiican qofku inuu biyo cabo, laakiin biyo kaba oo uusan si fiican si saa'id u cabin. qodobka saddexaad, qofku markii uu oon hayo waa haddii oon uu ku hayo jirkaadu wuxuu u ooman yahay biyo badan oo ooman yahay. marka haddii jirkaadu saas u ooman biyo badan aad cabto, waxay imaan karta waxa la yiraahdo electrolyte imbalance ay imaan karta, kadib waxaa imaan kara qofka qalal ku imaan kara, sidoo kale maskaxdii in xogaa ma taqaanaa wax si ka noqdaan maadaama biyo badan ay jirka galeen. marka waxaa la soo jeedinayaa qofku inuu cabo biyo yar oo kaba ya inuu isticmaalo marmar oo isticmaalo, maadaama fuuqbax saa'id uu jiro. sida caadiga ah dadka fuuqbaxa hataa waxaa fiican in ma taqaana biyo tiro badan afka aan laga siinin. habeenkii markaa seexanaydo sidoo kale waxaa muhiim ah inaadan biyo badan isticmaalin, sababtoo biyaha tirada badan oo isticmaalaydo waxay kaa qasbi doonaan hurdada, sidoo kale keliyaha uma fiicnaa leeyahay. marka waxaa la soo jeediyaa 2 saac ka hor qofku intuu seexan ka hor inuu isticmaalo biyaha, kadibna halkaas uu ma taqaanaa kasoo musqulaysto, kadibna uu sidaa ku seexdo. si guud biyuhu jirkeena caafimaad u yihiin haddii loo cabo si wanaagsan, waxayna dheelitir ku samayn karayaan dheefshiidkeena iyo dhammaan electrolytes jirkeena ku jira. laakiin haddii aad si qaldan u isticmaasho oo aad iska badido iyagu dhowdo ama waqti aan munaasib ahayn isticmaasho, khatar ay kugu keeni karaan. intaas ku daray waxaa jira wax la yiraahdo water intoxication oo ah qofku inuu biyo saa'id u cabo, kadibna halkii maskaxda ka gaari lahayd dhiig nafaqo wada oxygen wada, mararka qaar ay ka gaaraan biyo caadi ah oo wax badan oo mataqaan nafaqo ama oxygen iyo aan wadin, kadibna qofkii uu develop gareeyo wareer tiro badan, garashadiisu yaraata, kadibna inuu koomo galo laga yaabo. inta ku koobina barnaamijkeeni xogaa caafimaad, barnaamij lamid ah kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo. youtube-ka subscribe noo saara, muuqaalka meel fog gaarsiiya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.